Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Guys, dhammaantiin aad baan idin salaamayaa. Maanta waxaan rabaa insha Allah inaan idinka dabageeyo akoonada cusub ee FX Primas. Akoonkan cusub ee hadda soo kordhisay iyo akoonadeedii hore oo ay magac ka bedeshay. Insha Allah iyo rules cusub ay soo kordhisay. Marka insha Allah taas aan idin sheegi doonaa isla socod wanaagsan insha Allah. Marka akoonadii hore saddexdan akoon hore waxba iskama bedelin oo saddexdii akoon beriga hore kan waxaa la odhan jiray micro baa la odhan jiray. Kanna variable baa la odhan jiray kanna waxaa la odhan jiray ACM baa la odhan jiray. Marka qiimaha depositka kan uu wax iska bedelan marka hore $100 ahaan jiray hadda $15 laga dhigay. Kanna $500 ayuu ahaa marka hore imikana $500 baa u yar deposit. balse akoonkan cusub bay soo kordhiyeen oo aad iyo aad videogan hadda uu ku socdo. Sababta videogan aan u duubano uu isaga yahay. Marka akoonkan waxa ugu yar depositka $1000 baa ugu yar. balse insha Allah videoga waxaan idinku fahansiin doonaa adigoon $1000 deposit garin oo akoonkaaga ama $100 ama $20 ama $5 ama $10 ba kugu jiraan aad uga dhigan lahayd akoonka Primus Zero-ga. Marka Primus Zero akoonka Primus Zero-ga wuxuu ku wanaagsan waxyaabo ku wanaagsan waxa kamid ah waa zero pip spreadkiisu. Meelaha lacagtu halkaad ka gashay way kaaga bilaabaysaa ama faa'iido ama khasaare tagu wado. stop loss kaaguna macnaha aad buu u yaraanayaa dee sababtahay markii hore waxa nala socon jiray 1.5 pip bay nala socon jiray. dadka ay siyaanka isticmaalaan waxa la socon jiray 0.3 pip baa la socon jiray. oo waxa laga yaabaa trade-kii SL-ki ka gaadhin oo SL-ki kaga dhaco spread ka saaro ama lacagtii aad gashto isla markiiba minus ku bilowda. barta ka gashin minus ka bilowda balse kan wuxuu ku wanaagsan yahay zero spread-kaay bartaad ka gashaabo kaaga bilaabaya. wax minus kugu qaban maayo. waxyaabo kale ku wanaagsan waxa weeyaan Primus Pro-ga ama berigi hore ee siyaanka ahaan jiray commission-ka laga qaadi jiray wuxuu ahaa $10 ba halkii lot. balse kan wuxuu ku wanaagsan yahay halkii lot waa $5 kaliya. spread-kana kan wuxuu ahaa 1 to 500 buu ahaa hadda 1 to 1000 bay ka dhigeen. balse macnaha leverage-kan ka wada leverage-ka marka hore wuxuu ahaa 1 to 500 ayuu markuu eesanka ahaa. hadda akoonka Pro-ga waxay ku soo kordhiyeen oo ka dhigeen 1 to 1000. marka 1 to 1000 wax faa'iido ma leh 1 to 500 iyo 1 to 1000 waa isku mid wax farqi ah ma dhaxeeya ma jiraan. macnaha akoonkaaga $100 hadii 1 to 500 leverage aad qaadatay wuxuu la mid yahay $50,000 akoon ah uu awoodiisa leeyahay macnaha weeye. marka kana waa $100,000 buu awoodiisa leeyahay. mid walbaana waa isku mid already dadkii kan lagu ogolaanayo baa kan lagu ogolaanayaa. wax farqi ah ma dhaxeeyaan tan wax farqi ah ma dhaxeeyaan leverage. akoonkan Primus Zero-ga waxyaabaha uu ku xun yahay waxa kamid ah ma laha swap free ma laha. anigu waxa insha Allah waxaan kula talin doonaa labadan akoon qaata Primus Pro iyo Primus Zero-ga. akoonka waxaad ku qaadataan daily maalinta trade-aad maalintii galisaan aad habeenkii ka baxaysaan kan ku qaata kanna trade-yada swing trade-ka ayaa dhowrka cisho haysanaysaan insha Allah aad ku qaata. saas ayaan kula talinayaa insha Allah. ceebta kaliya uu leeyahay waxa weeyaan swap free ma laha oo habeenkiiba swap lagugu dalaacaya. marka taasna diinteenu way yara xaaraantimaysay oo la isku khilaafsan yahay. marka idinku saad uga dheeraataan akoonkaana Primus Pro-gana qaata si aad habeenkii trade-yada habeenkii haysanaysaan ugu qaata. akoonkaas Zero-gana trade-yada maalintii target-ka aad ka leedihiin aad isla habeenkii ama London session markaa gashaan New York session baad ka baxaysaan. macnaha scalp trade-ka ku qaata insha Allah stop loss-kooduna yar yahay. dee smart money haddaa isticmaashaan asxaabta smart money isticmaaleena kolley habeenkii kumaba hakanaba lacaga oo markaad spread-ka zero lagaaga dhigay 3 pip ama 2 pip baad SL ka dhiganaysaa. kadibna ugu badnaan 50 pip kama badsanaysid lacagta. markaad ama 25 pip baad markaad 2 pip SL ka dhigatay 25 pip waxa weeyaan 1 to 10 risk reward ratio. marka 1 to 10 kama badsan karaysidba. insha Allah hadaba ayaan idinku dheerayn sida akoonka loo sameynayo Primus Zero-ga sida loo sameynayona insha Allah waan idinka daba geyn doonaa. akoon dashboard-kaygii baan insha Allah idin geyn doonaa. akoonkan idin sheegay oo ka Primus Zero la dhaho mar dhawid baan sameeyay.
hadda waxaan ku shubay $10 baan ayaan idinku shubay dartiisaan akoonka inaan idin fahansiiyo. Anigu ma isticmaalo brokerada ma isticmaalo lacagta lagu shubtay. Anigu funding account baan isticmaalaa, funding account baan haystaa. Marka anigu insha Allah dadkiina akoonadan brokerada lacagaha ku shubta baan insha Allah si idinku faa'iideeyay videoga idinku duubay. Sidaad u samaysatid trading account halka ay ku qoran tahay baad tegaysaa, kadibna create new account halka ay ku qoran tahay baad tegaysaa. Create new account markaad tagtid halka referral ku qoran tahay waxaa ku dhufanaysaa kadibna other halka ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa. Other marka ku dhufatid waxa ku soo baxaya column-ka referral ay ku qoran tahay. Referral-kaas markuu ku soo baxo waxaad imaanaysaa Telegram channel-keeni baad imaanaysaa. Telegram channel-keeni markaad timaadid halka dashboard-kaas aad tegaysaa wadaneeyaha dadka halka magacaad ku dul dhufanaysaa. kadibna lambarkaas FX Primas halka ku qoran linkigaas FX Primas lambarka u dambeeya 41367421 ay soo copy garanaysaa ama siisaad soo qoranaysaa. marka soo copy garaysid halkan baad ku paste garanaysaa referral ay ku qoran tahay. Trading platform kana waxaad dooranaysaa MT4 sababtoo MT4 baa Primas 0 leh. akoonka idin sheegayna waa kaas Primas 0 akoonkaas ku dhufanaysaa account type kana leverage kana 1 to 500 baa ugu badan 1 to 500 ka dhigo. lacagtana USD ka dhigo currency-ga. marka create account ayaad ku dhufanaysaa. Ani hadda ma ku dhufanayo sabab tahay haddaan sameeyay akoonka haddaan akoonka Primas 0 ga sameeyay oo waa kana marka ku dhufan maayo ani insha Allah marka waxaad ii sheegayaa waa kana Primas 0 akoonkan hadda sameeyay mar dhaweyd baan sameeyay. marka $10 ayaan u soo wareejin doonaa u soo transfer gareyn doonaa akoonka Primas 0 ga. markaasaan ugu transfer gareeyana ila socda insha Allah. waxaad tegaysaa halka account transfer ay ku qoran tahay kadibna trading account transfer ayaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufatid halka transfer from ay ku qoran tahay waxaad ku dhufanaysaa lacag MT4 ka lacag ka soo transfer gareynaysid. halkan transfer tuna waxaad ku dhufanaysaa akoonka aad imika samaystay. hadda akoonkan Primas 0 ga samaysay waxaa 260631 ayuu ID-giisu ahaa. kadib halkan amount-gaad ku gelinaysaa waa $10 baan transfer gareynayaa kadibna transfer baad siinaysaa. Your request was successful binary waxa uu ku soo transfer gareeyay isla markiiba ku transfer gareeyay waxa akoonka 0 ga ahaa waxay ugu jirtaa hadda $10 oo ku trade gareyn karaa 0 spread as commission kana aad u yar yahay. marka insha Allah ka faa'iideysta asxaabta aad baan dhamaantiin islaamaya maalin wanaagsan waqtigu ha idin wacnaado insha Allah.